wasaaradda arrimaha gudaha iyo amniga qaranka jamhuuriyadda Soomaaliya ayaa shalay ku dhawaaqday oo ay taariikhdu ku beegnayd 4 bisha 9aad sanada 2011 inay iskaga baxaan Soomaaliland dadka aan u dhalan ee bila sharciga waxaanay wasaaraddu u qabatay dadkaasi inay kaga baxaan muddo 30 maalmood gudahooda cidii kaga bixi weyday amarkan oofin weydana in sharciga la horkeeni doono waxaana dadkaasi laga reebay dadka tabaalaysan ee xiriyaha qaxoontiga Soomaaliland ku jira ee loo yaqaano dadka barakacayaasha ee ka soo firxaday dagaalada iyo abaaraha isbiirsaday ka dhacay dalka Soomaaliya maaha markii u horeysay ee Soomaaliland lagaga dhawaaqo inay ka baxaan dadka aan u dhalanin ama aan haysanin sharciga Soomaaliland waxaanay arrintan ku soo beegmaysaa xilli dadka reer Soomaaliland ay haystaan sharciga dhalashada oo aanay hore u haysanin xilliyadii hore ee xukuumadii madaxweyne Riyaale ee amar lagu siiyay dadka aan Soomaaliland u dhalanin inay iskaga baxaan waxaanay tani u sahlaysaa jamhuuriyadda Soomaaliland kala saarista dadka aan u dhalanin iyo dadka u dhashay dalka haddaba si aan wax uga ogaano fikradaha ay qabaan dadka ku dhaqan magaalada Burcaan ku dhawaaqista wasaaradda amniga iyo arrimaha gudaha ee aynay dadka iskaga baxaan Soomaaliland u dhalanin ama aan haysanin sharciga Soomaaliland ee dhalashada waxaana dadkaasi iyagoo fikradaha ka hadlaya fikradahooda ka dhiibanaya ay la hadleen telefishinka madaxa bannaan ee Soomaalisa bila sharciga waddanka in laga saaro waa arrin aad bay waxay muhiim ugu tahay doonistaagga iyo madax bannaanida Soomaaliland dadka horumarada kale waxay keeneen caafimaad xumo waxay keeneen shaqooyinkii hoose ay dadkii ka qaateen dadkii danyarta ay ka qaateen ee wadaniga ah marka waxaanu ku taageeraynaa dawladdu inay naga saarto dadka barakacayaasha ee ajnabiga ee Soomaaliya ka yimid iyaga wadad Soomaaliyeed wadadaynu isku diinahay wadad waxay naga dhaxayeen iyagana wixii wanaagsan ee wanaag wada waddankeena ha joogaan si sharciga ku joogaan dawladdu ha ogaato waxa taageersan waxa laala wixii qaxoonti dhibaataysan iyo koonfurka in aan lagu darin sida looga reebay baan u taageersan aad iyo aad ugu faraxsanayn madaxweynaha Soomaaliland Mr. Silayo oo ku dhawaaqay dadka cusub saani doono ajaanibka dalkayga Soomaaliland taana waa fikradan qabaan dad badan ay la qabaan ma aamin in la saaro amaanka iyo xagga dhaqaalaha iyo xagga caafimaadka waxyaalaha ay ka hayaan in laga saaro bay la tahay iyadoo dadid iyo waxa inta loo geysan si wacan loo saaro qaarkood kamid ah oo jilcsana meel loo sameeyo dalka kalena dadweynaha ku dhaqan magaalada Burco ee xarunta gobolka Togdheer ayaa si weyn u soo dhaweeyay telefishinka Somalisat soo gelitaankiisa ee ku soo biray telefishinada Soomaalida waxayna sidoo kale u soo jeediyeen talooyin wax ku ool ah oo ay uga digayaan TV-ga inaanay ku dhaqmin telefishinadii hore qaarkood sida ay u dhaqmi jireen waa siday hadalka u dhigeen dad qaar kamid ah dadkaasi oo ka hadlayana waa kuwan magacayga waxa la Cabdullaahi Umar marka hore waxaan aqoonyahan sanad u jirayaa baahda TV-ga Somalisat waxaan runtii talaahan siinayaa saxaafaddu waa waxa dadweynaha uu ka duulo mid kasta oo dulman xaq kasta oo la gudsiyo inay noqoto mid dhexdhexaad ah oo warkeeda iyo barnaamijyadeeduna yihiin kuwa had iyo jeer gaarsiiya dadweynaha taasaan talaahan soo jeedinaya in ay waxyaabo badan ka bedelaan qaababkii hore TV-ga lagu yaqaan annagoo runtii rajaynayna in noqdo TV aad u soo bandhiga sumcadda iyo waxyaabaha magaalada Burco gaar ahaan hadaan nahay reer Burco nahay dhalinyarada aan ku hadlayna aad iyo aad baan soo arrintan ayaa ku soo beegmaysa iyo xukuumadda Soomaaliland ku dhawaaqday wasaaradda amniga iyo arrimaha gudaha qaranka Soomaaliland inay dalka ka baxaan dadka aan u dhalanay sharci darrada ku jooga Soomaaliland iyadoo ay jiraan shaqooyin badan oo ay dadkaasi qaban jireen oo ay kamid tahay doobiga ama dharmaydhista suuli qodista oo ay qodi jireen dadkaasi suuliyada iyo sidoo kale qashin burista lamana garan doono sida ay dadka reer Soomaaliland arrimaha noocaas oo kale ah ee dadkaasi ay maareyn jireen sida ay u maareyn doonaan sidoo kale waxay arrintan ku soo beegmaysaa xilli wasiir cusub oo xildhibaan baarlamaanka Soomaaliland hore uga tirsanaan jiray loo magacaabay xilka wasaaradda amniga iyo arrimaha gudaha ee qaranka Soomaaliland lamana garanayo sida ay u dhaqan gali doonto baaqan ay jamhuuriyadda Soomaaliland wasaaradda amniga iyo arrimaha gudaha ku dhawaaqday hase yeeshee dadweynaha reer Soomaaliland waa kuwa ka dhur sugaya sidii ay wasaaradda amniga iyo arrimaha gudaha dhawaaq ay ku dhawaaqday in dadka laga saaro sharci darrada ku jooga Soomaaliland inay dhaqan geliso Ali Daahir Maxamed Boos TV-ga caalamiga Somalisat Burco